muuqaal aad uga heshaan oo aynan disappointed ku noqon ayaan ii soo duubaynaa waxa weeyaan socdaalku Hargeysa ilaa iyo Sheekh berberaan ku hakan doonaa badan geyn doonaa marka si fiican oo la socda fiidiyowgana maxay dhamaysta ilaa intuu dhamaanayo जमाल दुल का हुयो जेली आए हरनी मोआ कुजोगो जेली आए जमाल दुल का हुयो जेली आए हरनी मोआ कुजोगो जेली आए जमाल दुल का हुयो जेली आए हरनी मोआ कुजोगो जेली आए जमाल दुल का हुयो जेली आए हरनी मोआ कुजोगो जेलियाए जिजी गधा गहबूर जेलियाए जबी गधीर धबो जेलियाए जिजी गधा गहबूर जेलियाए जबी गधीर धबो जेलियाए अवारू ललरो जेलियाए हरनी मोआं कुजुगो जेलियाए अवारू ललरो जेलियाए हरनी मोआं कुजुगो وهاجك داوديال waxaa ku suganay macaaniya oo dacar buruq in u jirta waxaa ku suganaa magaaladii berbera ilaa Sheekh Axmed iyo Qorjoog kala nala socda safarkan waa safar dalxiis oo lagu soo mari doono deegaanada Somaliland qaybo kamida waliba gobolka Saaxil deegaana ka tirsan Axmed Sodhow wandhow xamsa aad iyo aad baan balkowna safarkeena isaaka iyo safarkeenan waxaan taginaa ilaa iyo magaalada Sheekh la yiraahdo waxaan doonaynaa dhulka soo wada aragno badan tagi doonaa hadii la yiraahdo magaalada berberaan ku hakan doonaa hadii la yiraahdo ilaa iyo Hargeysa dib ugu noqono insha Allah qurba joogto waxa la dalkiina ku soo dhawaada dalka quruxdiisa inta soo doonaa muuqaalkana nala daawada waad arki doontaan jawiga iyo waxaad ku dhiirataan aad ku timaadaan dalka jawiidano kale heesan noocii Axmed ka cabirta bal dhinaca suugaanta isku fiicatay والله دينا سوغانت سواشاس كديس ويا سوات اسكو فيعنين لكن سيد جويغ waa jawi aad iyo aad macaan maxay dalkuna aad u qurux badan yahay wax badanna way isbedeleen marka maxay qurba joogto waxaan ku dhiiri gelinayaa ilaa iyo laba kale maxay waa markii ugu horeysay dalka oo la aqoonsan yahay aan imi weeyaan 23 goor baan imi xamsow waana markii ugu horeysay isagoo la aqoonsaday wax badanna way isbedeleen ma sha Allah ilaahayna saa noogu wado magaaladii macaaniyeed ku suganay markii macaaniyeed ku suganayna wadarkiisan de kale adigu waa markii ugu horeysay waan ka helay Hargeysa waxaan imika ku soconaa Sheekh jawiga Sheekh sawiradu ma ku arki jiray iyo TV-ga waxa maanta waxaan arkayaa Sheekh oo magaanaysa في لايف هذه دبنا waxaan tagnaa berberaan ma insha Allah inna la socdo saaxiibayaal ilaa iyo Sheekh Berbera wali waxa ku suganahay safarkaygii Berbera iyo Sheekh ilaa Hargeysa Cabdirasaaqow kulay dhowr jeer buu Axmed arkayso weeye Cabdirasaaqow adan anaga buurtan waa buur mucjisa sida la sheego Allah waa ku qoran wallahi waa cajiib inta badan toos baa loo arkaya kulay adigu markii kugu horeysay Axmed ugu yaraan mise jeer baa aad aragtay wallahi ilaa 10 goor waan maray wadada maxay sida nimankan gaariga ugu soo degay wali ma ugu soo degan uguma fiirsan laakiin se waa sheekad la yaab la weeyaan wallahi ha oo qofku wax ku qaadan karo weeyaan toos bay u muuqataa bal adinkuna hanala arkaan iyaguna kulay hadhow toole waxaan soo barbar dhigi doonaa waxaan samayn doonaa maxay magacii Ilaahay oo sax ah ayaan dhinaca kala dhigi doonaa bal marka dadkuna ha arkaan waxaan aragno anagu si noola arkaan marka labada waan dhinac dhiganaa taa mucjisada ah iyo taa maxay iyadoo qoraal ah marka si ay noola arkaan dadku bal waxaan anagu imka aragno marka kamarada laga arkayo iyo marka aad joogtid laba faraq oo aad u kala duwan weeyaan marka sidaasan daraad baan soo samayn doonaa Duulayda
जेलिया ये जमाल दुल का हुयो जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगो जेलिया ये जमाल दुल का हुयो जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगो जेलिया ये जमाल daawadayaal dhagaxaantan aanu ku fadhino mucjida la yaab kale aan ku aragnay Axmedow waxa weeye markaad halka ka marayso wadada wax yar baad moodaa dhagaxaan yar yar laakiin marka timaado waa dhagaxaan aad waaweyn Ibrahim ma koranay Ibrahim ha wallahi cajiib weey dhagaxaantan ana wayaabay waxaan sirto maalin ku cida ka soo dhici jiray ya sababta jiray ha bahalo aad waaweyn weey oo culus wala magaalada dhaqaajin karin bade marka wallahi waa ma sha Allah inaan kan imaan magaalada xamse waxaad moodaa dhagaxaantan markaan soo fogeyn de qoror waxbaad moodaysa ya imika aan ku dul fadhinana de wad la yaabsaa size-kooga sida la isku dul saaray inay bili aadan dhigdhigaan waxaan ahayn midda kale waxaad moodaa maxaa ina dab lagu qabtay marka ma foolkeena meeshan soo maray maxaaday waxaadsan u gubayaan u garan maayo laakiin sida waa mucjiso Ilaahay waliba inta magaca Ilaahay ku qoran yahay iyo kalarka gaarka ay leedahay iyo dhagaxaantu tilaalayeen dad imka dhinaca kala adeegtidee maxaaday dhagaxaantu inay madoweyn iyo dhinacna ay madow yihiin aad bay kala duwan yihiin kuwana aad waaweyn kuwaasina xagga ka yar yihiin marka waa mucjiso aad bay la yaab la tahay dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa markay wadada marayaan inay ku soo leexdaan oo ay soo koraan xaggan oo nimeeyo kala yimaadaan bisay u arkaan waxaan aan aragnay ya wax jalaasudkii Soomaaliland aad iyo wallahi dadkeena inta badan markay safarada ku jiraan waxa qurux badan Axmedow inay ku yar nastaan oo bal ay eegaan waxaan ay arkayaan wixii yahay imka wadadaas in marinay hadaynu dhaaf lahayn de wax badan oo ay imka arkayno maynaan aragneen marka dalxiisku xeebo ku fiicay waxa weeye inaad markaad meel aad aragto mucjisa inta distaagto bal meeshii aad tagto ya imka Axmedow aad ugu dhiirigeliyeen xagga nimaadna aad wallahi waan ugu dhiirigeliyay u malayn maayana inaad disappointed noqoteen maxaa dadka daawan doonaan ma noqon doonaan oo dhagaxaantii bay maantaan u malaynayaa bay si fiican u arki doonaan intay la leeyihiin dhagaxaantaas iyo say isku saaran yihiin mucjiso Ilaahay weeyaan maxaa waan ku dhiirigelinayaa san markii hore oo sheegay inay bal ku soo leexdaan oo ay soo koraan ma wada korno dambiga halkii ugu hooseysa baan anagu joognaa in badan baa naga sareysaa tamarno nagu yartaan inta ma dhaafi karnaa bal laakiin sida aragnay waxay yihiin iyo inta la leeyihiin ya mucjisana ku kala wali maragtaa inta may wali ma arkin marka waxaan kula talin lahaa qurbad joogta inta halkaas ka dhaafayaan in bal ay yareys taagaan oo ha iyo dadka wadanka jooga wadada anigu imka taa qurbad joog mihi waa first time ka markii ugu horeysay ee aan buurtan soo koro intaan waan mari jiray sax marka de meel la soo boqdo oo magaalada जेलिया ये जिजी गधा गहबूर जेलिया ये जमी गदीरी धबू जेलिया ये अवारू ललरो जेलिया ये हरनी मोआं कुजुगो जेलिया ये अवारू ललरो जेलिया ये हरनी मोआं कुजुगो soo dhawaada Independent National Petroleum Berbera وهاجاك داوديال مركن بربران soo galay cabsaqow adag ku horeynayay bal markan soo galay berbera ka waran wallahi markan soo galay de horta waxaan kaalinta ma arko ugu horeysa magaalada waxaan moodayna Carabaa joogo Kuwait iyo magaalada iyo gaari markan soo degayna Judi waxaan dareemayna Kuwait joogo de marka wali meeshii ugu horeysay soo istaagnay marka insha Allah gudahan waan geelna hadda markan soo noqono insha Allah أحمد أدوكو ده كل بربركم عسبيده لو تشرح راتي وارن دور قرو هران إبي لكن واحد بدنا بس كيف دلي كالن تنام كان شغلنا واجد بيسي دكداس اسمه هيدو واجد بي حامي هي شذا كان حركة كأركا صد أحمد ويجون واجد بي وقاعد غروح فضن مقالة السنووديين أكرش هاي وما كرولا ولي إنك استوى مقالة جودة هدي أنا إنجلين يا مركز اسمياش الجشيد كله دريم ساكولك مركز شو نو شو نو أحسن وانا الباب كي هو اللي جسوا قريان شغلنا هاي الباب هو رسم كورة شو فرح اليوم والله أبي عشبي أبي عشبي مقالة بربر ولا لبيري واللي بدر وضدي للراعي يا وضدي وقاد بس بصباح كل قلبتها عيين ودم ودوين بدل
dhar laga sameeyay aad ها asxaabta noo socda ها nala socdo oo maxay magaalada in badan baan maxay idin sheegno hore waa galeynaa waa arki doonaa magaalada sida loo beeray in badan baan daawaday laakiin live maanta soo arkanaa hadii la yiraahdo waana nala socon doontaan daawadayaal ilaa intaynu berbera iyo sheekh iyo dhulkiiba aynu mari doono inaba Jeliaye Jamal Dulka huyo Jeliaye Hornimo anku jogo 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 Jeliaye jijiga daga por Jeliaye jawiga dir dabo Jeliaye jijiga daga por وهاجاك daawadayaal dalxiiskii baa wali noo socda buurtii sheekh hoosteeda waliba de shararka dhexe ayaanu saaranahay meel barwaaqa oo aad u qurux badan cabdi baan ku horeysiinay cabdi soo dhaw meeshan waxay xasuusay berigan yaraa beeran lahaan jirnay oo buuro ku magaranaysa buuro u dhahaa deegaanku waa Tanzania meel la yiraahdo Kilimanjaro wad maqashamada meeshaasaan de ku dhashay anigu de meeshii oo kale bay magaranaysa ay yara egtay dalxiiska wallahi waa top marka kulli waa soo noqonaya insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo maxamed baan la socday isagoo de ma hawl yara oo nin aad dhulkan aad u maray maxamed soo dhaw aad iyo aad ilaa isharaftii ka soo dagaalamay aad iyo aad baan ugu dhawahay maanta dalxiis wanaagsan weeye dadka halkan naga daawanaya waan salaami doonaa halkan joognaa waa buurtii sheekh meeshuna waa buur waxa weeyaan wax leeyay ama buur hoon buur ku tiirsanow anigu buur baan ku dhashay marka xiisa gaar ah leedahay waxa weeyaan dadkan oo dhan baan wada garanaya marka tuga carray waa la aad iyo aad haayo tugaasaan tanalkaasan dhinaca kale uga baxay waxa weeyaan waxaan soo bandhigayay inaan buurta adoo daayir bad xiiqsantay maxamed waa dhalinyarada cusub axmed baa isaguna la socda axmed soo dhaw aad baan u dhawahay xamsi aad baan u maasantahay meeshana meel mucjisaa weeyaan oo aanan hore u arag intaan dhul marayay xogaana waan soo maray xamsow meeshana meel la mid ah oo maxay ka mucjisiisan ma arag waxa dhir ku taala waxa meeshan dhagax yaala tanalkaasaaba cajiib ah yaa marka meeshu meel aad u barakaysan weeyaan wadadana dhowr goor waan maray laakiin se wali meeshan ma soo daadegin waa markii ugu horeysay the first time yaa markaad suugeeda aragtay wallahi waxaan ku qiyaasaba garan maayo waa mucjis weeyaan aad iyo aad bay qurux badan tahay dhulsan oo kala aan dhulku dadka ku yaalay meel moodinba wallahi yaa wallahi ku nasto oo ku nafisa oo ku baraara oo waliba aroosyada ay aad ugu fiican tahay yaa maxamuud baa barbarkii taan maxamuudow xagga suugayahana waatay markaad jawgana ka aragtay maxaa suugan ku soo dhacay heestee ku soo dhacday waxay ku soo dhacday heestii ahayd dalkeena nimca fadhida gowre marka waxaan leenahay dadka ku soo dhawaada buuraha dalxiiska anigana waxay soo dhacday tadabko daroro arlada tiix wada gaadhe geeduhu taraare nimcadu tog waliba Jeliaye awaru lalaro Jeliaye hornimo anku jogo Jeliaye awaru waxaanu joognaa oo aanu baabuurkii kaga nimid xagga sare guntii hoose ee buurta sheekh ayaanu joognaa inta badan dadku buurta wadadun bay maraan ee ma istaagaan axmed dadka maxaad leedahay meeshan maadaama aynu guntii hoose aynu joogno gunta hoose dad saas bay maraane halkan waaba nooc kale weeyaan waa meel mucjiso ah maxaa dadkana waxaan ku dhiirigelinayaa bal inay sidaas oo kale hoos ugu soo daadegaan oo ay arkaan oo inay dhaafin yaa halkan ka soo degnay daweerkan baan jeclahay marka maxaa inta dalka inta qarsoon weeyaan meesha waxaan ku tilmaamo garamay waa meel aad iyo aad u cajiib ah oo green ah oo biyihii baa maraya tanallo aan hore ugu ogeyn baa meesha ku yaala marka maxaa dadka bal waxa sameeysan ku soo dega inta diir istaagtaan Jeliaye hornimo anku jogo waxaanu joognaa xagga sare ee buurta sheekh
waxaanu la kulannay mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo aanu ka wareysan doono bal deegaankan anigii Axmed oo safarka maanta igu helinaya soo dhawow adeer magaca dawladda bal ka war deegaanka uu fiican yahay way yaa way وطلعونا يا ذا دد يحولبا يا صح maxaa kula yaabnaayo oo aad la kulantay intii deegaanka joogtay intii aan deegaanka joogay wax badan oo daan la yaabo maaragay laakiin lacagin hadda shilka baabuurta ayuu baa wax aad la yaabto ya shilkii ugu weynaa ee ka dhacay halkan ee adigu aad goojoog u ahayd imise qof baa ku dhintay maxaa ku dhaawacmay qaabkee buu dhacay way badan yihiin qaar ay toban ku dhintaan iyo qaar wax ka yar ku dhintaan bay badan yihiin ya ood goojoog u ahayd aan goojoog u ahaa sax ya SNMT baad noo sheegtay inaad ka mid ahayd oo aad kuna dhaawacantay bal ka waran waqtigaasi badee wuu xumaa dadka la sukuumiyay halkan dhulka geedkan joogno halkaas 17 qof lagu diray 17 ya shicib bay haayeen miyaa mise SNMT shicib bay haayeen dhamaantood dawladdii dib bariga jirtay baana dishay adigu dhaawac sidoo ku soo gaaray aniga dhaawac wuxuu ii soo gaaray dadkaas u maana hadee marka rasaasta lagu rido ka yaacay inay ku dhacaysay ya sax imsa xabdood baa ku dhacay marka imika bariga dhaawaca soo gaaray imsa xabdood baa ku dhacay laba xabdood yay u dhacay sidoo kale waxaad noo sheegtay in deegaankan aad ka shaqeyso nadaafadiisa bal ma dawlad baa kuu dirtay mise adaa isku diray ma ana isku diray يا بندقين ودين لافدنا ينوع عنسى يا maxaad ka qabataa أنا إيش ودي ده waxay ku gubayaan bay imka bacay caagid yaa leeg waxa sumbar ku urna way maxaad leedahay dadka imanaya xaq maxaad ugu baaqaysaa dadka halkan imanaya deelay waxaan u dhignay ku guraan foostooyinka san daa u dhigan yaa caagada iyo baxara bacaha ninka aad aragtaan waxa la yiraahdaa dawlad waa nin muwaadin ah oo deegaanka nadaafadiisa ka shaqeeya dawlad iyo cid u diratay ma jirto cid wax ku siisoona dadka imanaya waxaan leenahay ha laga warhayo ninka odayga ah dawlad baana la yiraahdaa magaciisa daawadayaal waxaan ku sugannahay warshadii sawirka ee waqtigii dawladii Siyaad Barre waxa halkan la taagan Cali Nuur oo warshadan muddadaaba ilaalinayay oo aan su'aal ka weydiin doonaa Cali oo muddo inta lag badan warshadan ilaalinaysay anu imika waxaan joogay intii ay shaqeynayseena waan ku dhawaa intan imikana dhowr sano joogay marka warshadu haddii la helo wax intiraab oo rasmi ah oo dhisa oo dhisantay qalabka inta badan baa ayaa imika qalabka wax qabanaya oo diyaara dhul inta ku fadhiyana waa aragtaan dhagax waa halkan godkan gurigeena ugu xiga oo gurigeena ka shubaysay waa kan dhagaxii soo tuuray soo laba qaybood waa kan awshadu shubaysay guriga ku shubaysana waa kan guriga ku shubaysay waa ka halka weeyaan warshadu haddii aynu mustaqbal wanaagsan helo dhul istiraatiiji waa ku fadhidaa biyo waa dhex maraan hay dhul istiraatiiji guriyuhu xaggan way naga horeeyaan way yihiin albaabadii iyo daaqadaha iyo xasuuba ka yar furmay in imika farta laga qaado nooda haddii mustaqbal wanaagsan la helo waa halka inoogu fiican ee waxqabadkeena ama faa'iidadeena ama tamarteena soo kordhin lahayd warshadu waxaan maqlay oo igu maqaala ah maxay haamaha shidaalka dhuumaa ka imaada toos imaada warshada oo dhulka hoostiisa maraya arrinta wax ma ka ogtay dhuumaa shidaalka ka yimaada oo waagii shaqeyn jirtay hamish dalka oo kala qorkan waan tustona inay soo raacaan halkan imika dhuumo baahamo oo shidaal oo saliidii imika da qurunto dilaa dhulka qaar warantayba way jiraan haddama fahanti waxa la wuxuu qalab meesha u dhinna ma bay jirinba lagu fareeraysto haddii intii inoo shaqeynay ahaydna aad iyo aad ugu faa'iidaysay waddanka oo maanta gaadiidka iyo dadkuba kumaanku ruuxba ka shaqeyn lahaa waxaa jirtay imika Soomaaliland waa la aqoonsaday dee kulli mar haddii la aqoonsaday aqoonsiyo wax badan baa soo kordha ma laga yaabo haddii imika dawladda ay aqoonsato kale imaan geliso ama dawlado kale in si qurux badan dadka ugu filnaanayso aad iyo aad kumaanku ruuxba ku filaansa kumaanku ruux istiraatiiji ku taalo siday tahay gurigiisa iyo qalabkiisu yahay kumaanku ruuxba ku filaansa
waata caqabada ugu magaranaysaa aad loo soo kicin lahayd waa in dhoofi karnaa wax walba waa kaa daliga xidid sawirkeed wakaa haddaba garatay gurigan ay ka shubaysay laba meelood iyadoo ka shubaysa waan tustuna iskari waa dabada kula jirta haddaba garatay iminka anagu waanu ilaalinaa waxaanu ilaalinaa mar haddii qalabkii yaallo inaan la soo gelino wixii yaalla loogu yimaado guryihii ambase wixii qalabee yaallay aanu ku ilaalinaa ciidan dhowr aanu ku ilaalinaa ilaa 6 qof magaranaysa isbedela meeshaad arkaysa xaamadayg iyo ka dhacaysa ciidda kulul iyo magaranaysa waxaanu sanadee dalkiina ugu samra ugu suga haddaba garatay nimaa noo yimaado dalxiisya waxaan kuna wareereen halkaasaanu ku nool wixii aad duco noo gartaan noo dira dalkiina ilaalin baan tira wixii faa'iido inoo soo kordhinay ya adigu waxaan badnayn masaarifa yararoo magaranaysa ayaanu marmar ka qaadanaa marka intaanu isku qorshaynay ayaanu ilaashano dalkeena isaan waxba looga qaadin saar looga qaadin iminka imise qaybood markaad aad eegto imise qaybood ka koobantay warshadu ya ha warshadu imise qaybood ka koobantay waxay ka koobantay horta qaybta sawirka waa muhiim qaybo kaloona oo biraha waxaan ku war meesha fareeraysigeedu labada meelood ka shubaysa waa kan dawada halkani waa maxay ana aan duu taaganay waa gurigii lagu shubayay dhagaxa sawirka oo markaa ridqayay dawadayaal halkan aad arkaysaan waa halka ay ku shubi jirtay dhagaxaantii waaweyn ee sawirka taasoo loo warshadeynayay sawir ahaan una gudbinaysay meelaha kale amaha amba dhuumaha kale ee u soo gudbiyaan dhagaxaantii waaweyn way ku jiraan oo saad arkaysaan dawadayaal oo markay halkan iskarogooyinka ku shubaan dhagaxaantii waaweyn halkan u soo gudbin jirtay waa shinkii ridqayay soo gudbinayay ee u gudbinayay dhuumaha iyo hamaha kale halka kale aynu ka nimidna dhagaxaanta yaryar ayay ciida saasoo kale ayay ku shubi jireen dabadna waa u soo gudbi jireen wali warbixintani kameynaan dhugan goobo kale aynu mari doonaa oo warshadan ku saabsan ina socodsiiyo caliyow halkani maxay tahay halkan intan ciid baa mise waa sibir waxa weeyaan dhagaxii labada dhagaxii la isku darayay ee ciidda iyo ka sibirka isku darkii waa kuwa aan ku soo qaado wala isku darayay labada dhagax la isku darayay waa isku dar kan iyo ka saacad la isku darayay markaas la isku jigu isku sameeyay labada meelood bay isku roog daba saaray ka shubayay waa ciidda madow iyo sibirka cad markaas laga sameeyay sibir warshadu ka sameeyay sibir warshadu sibir kaliya tamay sameyn jirin rinji bay sameyn jirtay ha way jirta kuwaas iyo marmar ha laakiin labadani waxay qaabilsanaayeen sibirkaas labada ciidood la isku darayo la isku qasayo ay halkan ay jooga qabsan ha dhagaxeeduna ka meelaha kale marka aynu eegno waa hagaag daawadayaal weli waxaan ku sugannahay warshadii shamiitada ee waqtigiisii yaad bara la dhisay cali baa nala jooga cali bal nooga warbixi maxay haayeen hamahan waaweyn inaga dambeeya shidaalka aragtaan ee qubtay waa hamihii anfacayay warshada marka dhuumahaasi waa kuwii gudbinayay hadaa lagu dhigo waxaa soo guraya wax waliba waxba qabanaya loo laga shaqeynayay haddii ilaahay mustaqbalkeena hagaajino waxay anfacaysaa kumaanku ruux gaadiid iyo wax walba sidaasaanu de ku ilaalinaa kula joognaa aanu ku hor joognaa wixii mustaqbal iyo khayr wadana aanu tusnaa de waa sidaa halkan hadda wax yaroo faahfaahin naga sii yeedana halkan waxay dhuumahan shidaalka gudbaya kuwana raaciyay kuwaasi raaciyay waxay ku dhacayeen kuwa guryaha meel bay safaynaysaa saliid waliba meel bay kala fasal wuxuu biree ay safaynaysaa waxaan imika halka ka daadsanay madowey waa maxay waa saliidii haamaa ka timi oo dhulkii boolborinadu ka jilceen ka fatahday oo imikaas ka kansala weeyaan ma dhawaan bay fatahday mise waa waqtigii hore muddo imika doora ayaa iska fatahday wani baash markaa ma qalaleysanaya de ugu qalaleyso waa saliidda duxda ah ee bira loogu talagalay waa saliid cajiib ah una horeba waran waxa bisa loogu talagalay qaybta shaqaalaha ay degaan oo dhinacna tegin bal hadan yar waxa rafaafsiga dhul intee leeg waxa weeye qaybta shaqaalaha intee leeg baa loogu talagalay waa dhowr guriyo waaweyn halkan oo ilaa ku ruux waa shaqaalaha u kala qabsan sax kara ilaa ku ruux imika albaabada inuu ka maqan yahay daaqado sida kalena garatin waa waqtigii maxaad warshadu ay shaqeynaysaa dhisnay shaqaale intee leeg baa ka shaqeynayay shaqaale waxa ka shaqeynayay far badan oo xooga gaadiidkan bisan badan ma inaan lahayn oo gaadiidkan ugu yaraa bariga ilaa imika gaadiid badan shaqaale xooga rag iyo dumar baa yaa ka shaqeynayay
जेलिया ये जमाल दुल का हुई जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगु जेलिया ये जमाल दुल का हुई जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगु जेलिया ये जमाल दुल का हुई जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगु जेलिया ये जमाल दुल का हुई जेलिया ये हरनी मोआ कुजुगु जेलिया ये जीजी जेलिया ये जमी जेलिया ये जीजी गधा जेलिया ये जमी गदीरी जेलिया ये हवारू ललारू जेलिया ये हरनी मुआं कुजुगु जेलिया ये हवारू ललारू जेलिया ये हरनी मुआं कुजुगु जेलिया ये जमाल